wafdigan oo isku jira wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay kadib safar ay maanta ku tageen caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Barawe. Mas'uuliyiintan ayaa soo kormeeray garoonka diyaaradaha ee magaalada Barawe oo uu wali dhismo ka socdo, waxaana intaas kadib kulan ay kula yeesheen madaxtooyada Koonfur Galbeed qaybaha kala gedisan ee bulshada degmada Barawe. Maxamed Ibrahim Barre gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bogaadiyay safarka wasiiradan ka kala socda wasaarada muhiim u ah baahiyaha iminka ka jira Barawe sida gargaarka dadka, dhismaha aeroboorka iyo dib u dhiska goobaha waxbarashada. midka ay isticmaali doonaan reer Koonfur Galbeed oo maadaama markii la leeyahay loo muuqatay inuu noqon doono mid la furi doono oo shaqeyn doona mardow insha Allah oo diyaaradaha ku ay soo bilaaw doono. Wasaaradda waxbarashada oo wasiirkeedii wasiir dowladda la joogay asagoo uu soo noqday qaybihii waxbarashada iyo iskuulaadka badan qaaday in la dhisi doono dibadda laga dhisi doono kuwaasoo noqon doonaan dhanka farsamada khaasatan tababar lagu siin doono reer Barawe sidii u kalluumaysan lahaayeen una faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka. Wasiir dowlaha waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dib ay u yagleeli doonaan dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee Barawe. waa maalin weyn, waa maalin sharaf oo Soomaaliyeed, waa maalin aan soo gaarnay degmada Barawe oo waqti ka socda dowladda federaalka una nimid inaan ku galno baahida ka jirta degmada Barawe oo ah caasimadii Koonfur Galbeed. waxaan aniga si gaar ah u galay baahida waxbarasho oo aan soo arkay wareystay maamulka waxbarasho maamulka degmada iyo dadka waxbarasho ku qaabilsan. waxaan halkaa rabaa inaan idinka sheego ummad waxay ku horumartaa waxbarasho, dhalinyarada iyo carruurta degmada Barawe joogana xaq ay u leeyihiin inay la mid noqdaan ardada kale ee Soomaaliyeed ee jooga caasimadda Muqdisho Baydhabo iyo Garowe. Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wasiirka dowlasta hawada ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeyn doono dhismaha garoonka Barawe. Cabdiwali baahida ay qabaan dadweynaha degmada Barawe baahida ugu weyn ee hadda aniga soo arkay soo baahida ay badan yihiin waxa ugu weyn maadaama cadow muddo badan dul saaran alxamdulillah ilaahay hadda laakiin jidadkii oo dhan meel kasta ay ka xireen meesha kaliya ee soo geli awada garoonkii in si degdeg ah insha Allah taala idinku dhaw Wali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal caasimadda Koonfur Galbeed Barawe.